raggii weeraray hoteelka Naasa Hablood labo ee degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxa la xaqiijiyay inay hayeen ilaa 6 dagaalame kii ugu horeeyay wuxuu ku dhintay qarxii gaariga ee lagu dhuftay albaabka hore ee hotel Naasa Hablood labo ee degmada Xamarweyne waxaana hoteelka gudihiisa galay 4 kamid ah dagaalamayaasha afartaasi kamid ah ayaa mid kamid ah saqdi dhexe xalay hoteelka dhaxdiisa isku qarxiyay kadib markii ciidanku ay toogasho u geysteen 3 kamid ah dagaalamayaasha ayaa la qabtay oo hoteelka meel dibadda ah ka aaday markii ay rasaastii ay ka dhamaatay sida ay noo sheegeen qaar kamid ah saraakiisha ciidanka dawladda qofka shanaad ayaa la sheegay inuu waday gaari ku qarxay meel ku dhow hoteelka ekis xaruntii hore ee baarlamaanka lama ogo inuu dhintay iyo inuu baxsaday haddaba 3 rag ee dagaalamayaasha al-shabaab ay hoteelka gudihiisa u galay oo ciidamadu amnigu ay qabteen waxaa la sheegay in ay hoteelka meel kamid ah ay ku dhuumaaleysteen waqti dambe markii ciidanka meel kamid ah hoteelka ay soo galeen qaybta sanana ay gidaaro jabsanaa ay ka baxeen kadib xaafado ay galeen waxaana markii dambe u dhaceen guri ay qoys deganayeen qoyskaas guriga degan waxaa aabbo ka ahaa gaashaanle sare Ali Cabdi Jubbad oo kamid ah taliska guud ee ciidanka Soomaaliya waxa uu sheegay in xilligaasi ay jiifeen raggaasina qoriyo rasaastii ay ka dhamaatay ay ku qabteen mid kamid ah wiilashiisa oo banaanka guriga jiifay kadibna ay ku amreen in uu hago oo u toosiyo wadooyin ay maraan laakiin mar dambe uu isaga ku soo baxay kulana taliyay in waqti dambe ay tahay ay jiiftaan dharka iyo ciidankaasi hubkii ay wateen loo xareeyo markii waagu uu baryana la wareejiyo laakiin way qaateen taladaasi markii xaroodeen kadibna wuxuu la hadlay laamaha amnigu fariin kula wadaagay oo halkaasi